أنس بن مالك رضي الله عنه خادمك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم نبي مدينة وسوي هجرودي السقي هو يدي دت مقالة مدينة وفقير سنبي هايان markii nabiga Madiina lagu soo dhaweeyay ciidaduna ay sii dhici rabto ayaa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam islaan haweenay ilmo yar wadata irida ku taagan oo albaabka joogta markaa buu nabigu u soo baxay Sulaym radiyallahu anha markaa buu nabigu ku yiri haye waxay tir islaan miskiinada oo faqiirada ayaan ahay waxaan ilaa xilliga kaaga dib dhacay ee dadabadii aan kuugu imiday waxa hadiyadu anigu aan ku keenay ma haysta nabi allah laakiin inan kan yar baan laahay wax u bada inan ka yarna waa walad baariya oo barakaysane adiga ha ku adeegyada hadu diratida iga gudoon bay ku tiri waqfi man u bixiyay Anas markaa buu nabigu ka gudoomay Anas bin Malik 10 sano ayuu nabiga u adeegay sallallahu alayhi wasallam xanuunku nabigu la dhimani doono markuu xanuunka uu nabiga riday ayay gacanta soo qabatay Anas nabiga u keentay ku tiri ya rasuulallah khuwaydimuka Anas khadimkaaga yaraaya Anas waa kane u duceey bay ku tiri saddex buu nabigu ugu duceeyay cimri dharar iyo xoolo adduunyo baraka leh iyo awlaad barakaysan wuxuu yiri Anas bin Malik baa ka sheekeeyo yiri ducadii nabiga waan helay calayhi salaatu wassalaam عمري واي داراديو وحالي وحو ها رغي صحابته ugu dambeeyay dhintay buu haaba leeyay boqol iyo dheeraad buu cimrigiisu gaara leeyada maalna wuxuu noqday muslimiinta ninka ugu xoolo badnaa buu noqday zamankiisi ubadna wuxuu noqday boqol anigu aan dhalay shafaac bay ku dhintoon waan aasay buu yiri boqol iyo 20 wiilashaydii iyo wiilashoodii oo 120 isku ana والله عنتيو سفرة الله فريستي بودي ويلاشي هدا انت ايهين قبل هنا وايم سمر كان حدو ملاين مرقابو كو اورنجري واتا دعاء النبي محمد بركه دي اركبو اورنجري عمري الهي وا او دheereeyay xoolihiisina waa meel kala dhigaa la waayay awlaadna wuxuu gaaray inuu yiraahdo boqol anigu aan dhalayna waan aaso waan duugay oo qabriga ayaan ku riday 120 anigu aan dhalay iyo kuwa si dhalan 120 isku ana سفردان ولا فرسنا ولا عنتي بودي سعة في الرزق وطاس عبادة هي طاعة إلهي عز وجل وصلاة أي ككوتهي حريرك إلهينا عز وجل وكمد يهي مركان أتكي سنة ماشي للدوني لميت كي الله قد تلقى العبادة مركي قادو نولش إنه مركا يدس بدي ليس إنكو إمكا وحارنا نولش إنكو هكا جن العقد نولش العقد نولش ما هكا جسو lacagtu waa warqad lama cuno lacagtu waxay keentaa dhar yar oo la xidho iyo cunto mar la cuno iyo aqal yar oo la hoos galo lagu la seexdo wax kala ma leedahay ma leh آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أبو النبي عليه الصلاة والسلام حديث معني سواء إن هذا نوح ليه هي حولها يجي لعقتيدي مرقى أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا نوح حولها قميات كل هذا هي إلا صدح أمات كل هذا هي نرات كحرة أو باليوبع يعنت عنت أو دماتا عنت ذا مرقى عنت الكل جيا صحاري نقطة يا واحد لبح ذو آخرك هاجه الريا أما خير كبحي أما شر كبحي وحي أطبحي سي ماشات كبحي سي هذا خير تهينا ويكاه الرئيسا هذا معصية الذنوب كبحي سنة ويكاه الرئيسا أبا صدح ذا العقد درات حرتي أو باليوبة عنتي أو محي نقطة سحروا لبن إنه حنون سنبال زيارتي أو جارة markii loo duceeyaa lagu yiri saad u bugtaayo xanuunkaagu waa sidee markaas uu caloosha ay socoto buudi hawa socotade ko kale kii kale la ziyaarto warna sidee lagu hayaayo caloosha ay taagan buudi taagan midna saxaradii baa ka baxdo la jiifa
من السحرة دي بس كنت تقول جيفا هذه هي الدنيا الدنيا وابين تاس هاي قيمة لديها مركز تاسع نسكن نعني ما أنت ونكون دماني وعقل جيني كل ماضي وعمر جيني كل ماضي ودنيا جيني كل طي ومجتمعين كدمي ومسلمين تدلل كوجي دين تودي أكوا ين ما أنت الديو الدنيا ذنا إلهي بهايا يا هيا إلهي بهايا إلهي ويديسو تو حلال ولي بإلهي ويديسو ابن عباس رضي الله عنهما شنتاب يوشيك مارك تاني عبادة يا صلاة مركي قاعد هلكي إلا دوني شنتابا إلهي قفك مومك أدونك دوشيد أو كظاهرية نور في القلب بويري نور قلبك قلع وضياء في الوجه يوجهي سوء افتيما وقوة في البدن يجركي سوء إلهي إلى ليحوقيسا وسعة في الرزق يا أرزاق دي سوء إلهي واسعيو ومحبة في قلوب الخلق يا خلق إلهي قلوب تودك القعيلة وكوغليو حسن البصري رحمة الله عليه أيا مجالستي سمركا ودين تدتك ودقايو دتك الشرفاء أيا مجالستي سوء عمر جريبا ليك شرفاء الناس دتك مالقبين دا يا دتك مدحدا أولاد أي دلان يا بقردو أيا مرول بمجلس كيس إيمان جري مرقاسا لقول يا أبا سعيد مجلس كاغن دتك أخيارتا أيا يمادي أكتا هذا محاي كهلين بلنوشيك مرقاسو يري وحي هايستين بانا نقو عن ككاف تومي وحان هايستان وأوبهدين بيودي وحي هايستان باي وحي يكوي هايستان وحي وينين يان ما وينيان نقو وحي قيمين يان ما قيميو أدوية قيمين يان أنا أكتيد أدوية قيمة كمال ويان أدوية جعليهين أنا أكتيد أدوية أنا مجعل أدوية ويان لعكتي قيميان أنا أكتيد لعكت ما قيميو قبيل بي قيميان أنا أكتيد قبيلة قيمة ملأ waxay qiimeynayeen haysteen ayaan faraha uga qaadoon u daayay waxaan anigu aan haystan ayaka u baahday buu markaa muxuu haystaa isagu markaa cilmi buu haystaa xiriirka ilaahay buu haystaa cibaaduu haystaa dhikri buu haystaa salaat al-layl buu haystaa qaa'im al-layl weeyaan saa'im an-nahaar weeyaan xiriirka isaga ilaahay ka dhaxeeya ayaa u adag marka xiriirka ilaahay maadaama oon haysto waxaan haystaa markaa ayaka u baahan buu yiri badeecaddan haysta iyaka u baahan weeyaan badeecadday haystaanna agtayda qiimo kuma leh maxabbatan fii quluubi lkhalq khalqiga oo dhan haddaad doon dadku inay ku jeclaadaan adigu ilaahay jeclow biqadri khawfika min allah yahaabu lkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق وبقدر اشتغالك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك عطاء السلمي رحمه الله يا أورنجري حبينت ذلك إلهي كعب صوته أيا مخلوقنا كاهي بسنيان حبينت إلهي جعلاته أيا هذه مخلوقك جعلانيان حبينت الأمر كإلهي أدجسته أيا مخلوقنا هذه باهدا هذا كود بولا ينبويدي إلهي xiriirkiisu waa shay qaaliya weeyaan noloshoo dhan waxaa ku hagaajinaya waa xiriirka adigo ilaahay inaga dhexeeyo xiriirka inaan hagaajisana sooma wanaagsano ninka raba inuu hagaajista markaa ma lacag baa laga rabaa may lacag maaha xiriirkaa lacag kuma xidhno haddii xiriirka ilaahay inaka noo dhexeeya lacag lagu xidhi lahaa dadka lacagleedu lacag bay bixin lahaayeen si ilaahay ugu dhowaadaan فقردنا مركا حريرك إلهي ميسن هلين لكن إلهي جل وعلا لعكم حرين حريرك إنك يا ربي نوده هي وحلقوا حريك كليا إلهينا الرمي طريقة النبي محمد راع أو أنت صلى الله عليه وآله وسلم حريرك وسهل فقير كنا إلهي وأود وانكرا maalqabeenku ilaahay uu dhowaan karaa madaxweyne ilaahay uu dhowaan karaa caalimku ilaahay waa u dhowaan karaa haweenku ilaahay waa u dhowaan karaan
دل يرد إلهي ويود وان كرام وطريق فرن ويان وطريق فرن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا كو حق يجا أسو هالجمبا إلى هيدا أسو جهادا جدتك يجا أيان أفضيدنا جدتك يجا أيان كو هذيننا با إلى هيدي إلى هينا دتك محسنين تا السما فلك بدل أيان معوجا هيبا إلى هيدي والذين جاهدوا فينا ابن قيم الجوزي رحمه الله عالم من علماء الأمة كمذا والربانيها آيات مركو شرحة يوحيري نمانيك وكجهاد وين يهي أيو كهنون وين يهي بودي جهاد وقفرض عين سنة وحويان ونفتو للا جهادو شيطانكو للا جهادو الدويدو للا جهادو إيا شهواتكو للا جهادو أفرتا للا جهادا فرض عين على كل مسلم جهاد النفس يا جهاد الدنيا يا جهاد الشيطان يا جهاد الهواء هو هذا لا جهاده هو هذا هالراعينه هنونك الراع شيطانك هالراعينه وشيطانك هيالينه إلهي رسولك الراع الدنيا ده أوجسن حق ذي آخرة أوجسو شهواتك هالراعين لماذا؟ لأن الدنيا ده ماشي شهواتك بني آدم اللي قدام ما يستري معها الشهوة هذا ترى الدون كدوش هذا وحي نفتيد عيدون يسهن ولا يلو ما صورة جلس ما من هليس لأن الشهوات كبني آدم كأدون كدوش هذا إنه كل ما يسترمان ومستحيل إلى هنا كما يلين وهي نفت بني آدم كون يدي ما تمجع له هذا نواد من إنه بكو تمجع له هذا نواد بكون إنه تجبو تمجع له هذا نواد جبوبي إن أتباهي كوكبة تمجعله هذا نواد باهن إن النحذ مجعله هذا نوى النحي إن المرغو تمجعله هذا نواد مرغون إن العبس تمجعله هذا نوى عبسا إن الأبارو تمجعله هذا نوى أباروبي شهوات كوا معي وحاسودنا صو شيغني marka naftaada aad ka joojisid ayaa laga yaabaa shahawaadkaaga inaad heshid adduunka inta la joogana geeri ku dayni mayso oo gabow ku dayni maayo oo murug ku dayni mayso oo baahi ku dayni mayso oo bugtaani ku dayni mayso oo abaari ku dayni mayso oo cabsi ku dayni mayso maxaa yeelay laana noloshan adduunyadu waa daar loogu talagalay inay bini aadamku ilaahay ku raali geliyaan mooye looguma talagelin adduunka inay dadku naftooda ku raali geliyaan bini aadamku adduunka dusheesa shahawaadkiisa waa laynoo xadiday innaka cunnada waad jeceshahay laakiin madeebaad cuntaa ma cuni karaysid keligaa inta calooshu qaaddo wixii ka dambeeya haddaad ku gurto xanuun baad ka qaadi biyaha waa la cabbaa waa shahawaad naftaa u baahan sharaab in la cabbo laakiin daaqadii loogu talagalay wax ka badan haddaad cabtaa waad ku bukooni hurdadu waa shahawaad hurdada intii loogu talagalay in ka badan haddaad seexataa waad ku bukooni galmoodku waa shahawaad galmoodka intii loogu talagalay ee baahidaada aad ku gudanaysay in ka badan haddaad tiraahdo waan la galmooni reerkayga waad ku daali waana ducfiina waad ka qaadi dhib baa kaa soo gaadhi shahwada bini aadamka adduunka dusheeda waa la xadiday haddaad shahawaadkaaga aad raacdana meel jar inaad ka dhacda mooyaane inaad adduunka shahawaadkaaga ku gudataa waa habeenkii xalay uu tegay ma soo noqdo waayo ilaahayba kama yeelin adduunka inay noqoto meesha bini aadamku shahawaadkooga ay ku gutaan marka ilaahay innaka u baahan adduunkan macrifada ilaahay ku dadaal oo diinta camalfalkayga ku dadaal oo taacadda ilaahay ku dadaal oo raalligelinta rabbiga ku dadaal si aakhiro markaad tagta adigana ilaahay uu ku raalligeliyo aakhiro maxaa yaala aakhiro wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wataladdu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun aakhiro maxaa yaala walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun
آخر محايا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون waxaa naftaadu ay doonto oo dhan meesha la dhigay waa janno halkan maaha haddaad tidhaahdid adduunka dusheeda waxaa naftaydu ay doonto ayaan u yeelayaa gaalnimay kugu ridi gaalnimada waad dhaafi deedna marka dambe xayawaaniyaddaad ku dhici xayawaaniyaddana waad dhaafi waxaad noqonaysaa markaa kuwa ilaahay yidhi bal hum adallu sabiila waxaynan xayawaanku aynan samaynin ayaa maanta bini aadamka qaarkood adduunka dusheeda ku samaynayaan siday u lahaayeen shahawaadkaaga gudo xayawaanku dakar fuula maad aragteen bini aadamku shahawaadkooga siday lahaayeen shahawaadka u guta halkaasay marayaan inay ragguna rag ku kaaftoomaan haweenkuna haween ku kaaftoomaan maxaa keenay xayawaaniyaddaas waxaa keenay waa ariiqu shahawaat shahawaadkii bay raaceen say u lahaayeen nafta raalli geli oo naftu waxay doonaysaa u yeel waxaynan xayawaanku aynan samaynin ayaa maanta bini aadamku caalamka ku sameeyeen ilaahayna dulqaad weynaa ilaahayna wuu eegaya ina batsha rabbika la shadiid maalin buu ilaahay qaban doonaa hadduu ilaahay ku qabtana ilaahay ku sii deyni maayo ogow marka shahawaad waxa naftaadu ay doonayso meesha ay yaallaan waa jannada weeyaan halkan ma aha marka han dadaalna insha allah ha ku dadaalna maaragtaanay saan adduunka dusheeda ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu raalli gelin lahayn ilaahay raaligelintiisu ma adko nabigeenna sheegoo yidhi ina allaha la yardaa can alcabdi an yaakula alaklata fayaxmaduhu calayha aw yashraba asharbata fayaxmaduhu calayha luqmadda cuntadeed qaadatay eed ilaahay ugu xamdido ayaa ilaahay raalli kaaga noqon buu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam ka bashada biyaha eed ka batid eed ilaahay aada ugu mahadisid ayaa ilaahay raalli kaaga noqonaya raalligelinta bini aadamku waa qaayo aan la gaadhi karayn laakiin raalligelinta ilaahay way fududahay axad min culamaa'i almuslimiin nin culammada muslimiinta ka mid ah ayaa inankiisii buu ku yidhi cilmi baan ku barya maantayna mari magaalay soo galeen isaga iyo inankiisii baa wada socda dameer bay markaa wataan wayse soo raaceen dad meel fadhiyay markaa ag yimaadeen dadkiibaa saa intay u eegeen bay ku yidhaahdeen labadan odaygiiba lala hadlo yarka maadaa dhale haa anigaa dhalay haa waa inankaagi haa dee sidee tihiin baa lagu yidhi ma bila caqli baa tihiin he dameerkeenni ag socda muxuu yahay maa dameerka fuushaana ama midkiin muu fuulo markaa buu yidhi soo ma arkaysid buu yidhi haa taa casharkaa kowdha buu yidhi oo cashar weeyaane haddana kuwa kaloo meel fadhiyay soo mareen iyagoo dameerkii labadoodii wada fuushan markaasay yidhahdeen war kuwan jaahiliinta waa maxay bilaa naxariista soo kuwa dameerkii dilay culays ku dilay may mid u fulaana markaasuu yidhi ma maqashaa ha waa casharkii labaad ee dhegayso haddana kuwo kale soo mareen odaygoo dameerkii fuushanoo wiilkanoo lugaynayo markaasay war odaygan duqay bilaa naxariista ilmaha yar lugta ku dilay muxuu yahay muu isagu lugayo ilmaha dameerka saaro casharkii saddexaad waa kaa dhegayso way socdeenoo isagii baa uga dhaadhaco odaygii baa lugaynaya waa maxay ilmahan bilaa naxariista bilaa ixtiraamka isagaa dhallinyaree muu lugayo aabbihii dameerka u dhaafo markaabuu casharkii afraad waa kaa dhegayso wuxuu aabba buu yidhi haddaba waxaad ogaataa rida annaasi gaayatun laa yudrak haddaad istiraahda bini aadan raalli geli waa qaayo aan la gaadhi karin buu yidhi laakiin ilaahay raalligelintiisu fududa balaag cuntada ayaa ku siiyey ilaahay baa ku siiyey qadadii baa lagu soo dhigay besinkaad u qabatay markaad cuntadii cuntayna alxamdu lilaahi aladii acamanii baa tidhi intaasaa ilaahay raalli kaaga noqon biyaha qabow ilaahay baa kugu deeqoo ku siiyey kabashada biyaheed ka batay ayaa ilaahay raalli kaaga noqon marka adduunkan dusheeda ilaahay inaad ku raalli gelisaa maanta way kuu fudud tahay laakiin banka qiyaama marka la yimaado hadduu yidhahda ka warran qofka halkaaba ilaahay ku raalli gelin ma soconaysaa ma soconayso marka ilaahay raalligelintiisu maanta adduunka dusheeda way ku fudud tahay sadaqadood bixisid salaadood tukatid wanaagood ummadda u sheegtid diintood baratid diintood ka shaqaysid miskiidkood ku ictikaaftid
استغفارتود بديسد صلي النبي قد بديسد صلى الله عليه وآله وسلم أعماشا يا بسيطك أدونك دوشي إذا أعماشا إذا قبط ما أنت وين يرتهي صلاة تكشيد إذا العكاكا ما بحيسو صونك الصومدي سل العكاكا بحميسو فدقي مسكيتك العكاكا بحميسو جزء قرآن آخر قصة العكاكا بحميسو كن استغفار العكاكا بحميسو كن صلي النبي العكاكا بحميسو كن سبحان الله العكاكا بحميسو ومجانا إله النعمة دا إنسيي إن كفى إيدي سنة ما أنت الله بحن يحيى أون إلهي بقول دوانه وكد دال إله الضاعات ديس وأنت إن المساجد السوق لسا عمريسا أنت إن نجا مقنا ماركتين المساجد أنا قوير وضدك دحق الله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم بالنبي يقول مؤمن كدتك دحق لايا دبك كسو قارن وات كيسنا ayaa ka fadli badan buu nabigu yidhi muuminka dadka aanan dhex galaynin dhibkoogan aan u adkaysanayn muuminka caabidka ee iska cibaadaysanaya iyo muuminka daaciga ee dadka khayrka ugu yeedhaya farqigaasaa u dhexeeya ogow xadiidkuna waa saxiix weeyaan oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa axaadiistii nabigeenna laga wariyey weeyaan tirmidi iyo ibnu maaja labaduba way sheegeen culammada islaamka ee maaragtaan muxadisiintuna waxay isku raaceen xadiiskaas inuu yahay saxiix muuminka dadka dhex galaya siduu muuminku dadka u dhex galaa u dhex socdaa oo ugu yeedhaa khayrka u waaniyaa oo u nasteexeeyaa dacwaddu gaadhsiinaya dhibka ka soo gaadhana uu u adkaystaa kaasaa fadli badan buu nebigu yidhi ka fadli badan ka dadka aanan dhex galaynin dhibkoogana aan u adkaysanayn marka insha allah dhahada inaan dadka khayrka iyo naseexada iyo dacwadda la dhex soconno oon diinta ka shaqeyno insha allah dhahada diyaar ma nahay shaqada diintu waa waxa adiguna aad ku badbaadi ummaddan aad ku badbaadin habeenka jimcahana markaska ka soo qayb gala masaajidana waa taa acmaasha dacwaddu ka socotee ka qayb gala oo fursad markaad haysataanna ilaahay dartii u baxa meesha qafladda badan la waa laga yar baxaa maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen markaa buu nebigu ku yidhi bilaalow waan yar daalanahay halkana waan seexanaynaa waa ku nasanaynaa caawe salaada subaxidayna dhaafina noo kici buu ku yidhi bilaalna hurdadii baa la tagtay radia allahu canhu cadcaadiyo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu alay wasalam bilaaloo hurdana waa la kiciyey nebigaa kiciyey bilaal maxaa ku helay yaa rasuul allah allaha naftiin nin niga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi way tukadeen markaasuu yidhi meeshan waa meel khafladeede inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara buu ka yidhi halkaa u guura meel salaad keliya ay ku dhaaftay hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto ha ka guuro meel 100 salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankeyga bal ka warrama dadka muslimka dhul muslima intay ka tagaan dhul gaala u socda u guurayna ka warrama hal salaad meelay nebiga iyo saxaabadiisa ku dhaaftay iyagoo khaarijiina oo ilaahay diinkiisa u socda hadduu nebi maxamedu yidhi meeshan qaflad baa inagu haleeshay ee hanbadallo meesha 10 salaadood nagu dhaaftay ka warrama markaas soo inaan ka yar baxna soo maaha waa inaan ilaahay dartii u baxna markaas 4 bilood 2 bilood 40 cisho bisha fasaxa ardayda macallimiinta shaqaalaha dadkeena faraaqa haysta haddaad khayrka camiri weydo ood masaajidda camiri weydo maqaayadaad camiri haddaad culummada iyo ducaadda higilka siini weydo siyaasiyiintaad higilka siiniya kuwa qabiil ka shaqaynaya haddaad dadka xagga ilaahay ugu yeedhi weydo adaa sharka lagugu yeedhi haddaad diintaada aad ummadda gaadhsiin weydo dhaqan kale oo dadkale leeyihiin ba adiga lagu soo gaadhsiin waanaad arkaysaan maanta mujtamaceena dhallinyaradiisa siduu eg yahay inteenan waa intii fiicnayd baa tiina khayrka jeclayd laakiin intee naga maqan ka warrama allaha soo geliya iyo kana da inaan dacwadda ka wada shaqayna soo diyaar ma nihin insha allah allah inaga aqbalo intaasaan ku soo koobaynaa dad badanna ducay dalbanayaan baa la yidhi ilaahay caza wajalla iyakana waxaan uga baryaynaa wixii naga bukay eheladeenna haween iyo rag ba ilaahay caafimaad sariica inuu siiyo eheladeenna rag iyo haween wixii naga buka caafimaad sariica allaha siiyo caafimaad degdeg allaha siiyo
qof walba halkuu ka bukana caafimaad degdega allaha ka siiyo qof walba halkuu ka kurbaysayna kurbada allaha ka faydo dhallinyaradeenna wiilal iyo gabdhaba allaha inoo hadeeyo abaarta daahirka iyo tabaadinkana allaha inaga kor yeelo amniga iyo iimaankana allaha inoo siyaadiyo amniga aan haysanana allaha inoo adkeeyo islaamnimadana allaha inagu dilo allaha inagu soo saaro waxaan ku hadalay khayrana soo dhex maran allaha inaga aqbalo muslimiinta meel ay joogaana muwaafaqiin midnimana allaha siiyo eheladeena wixii dhintana allaha u naxariisto waalidiinteennii iyo waalidiintoodii wixii dhintay xuquuq iyo xurmo iyo xusuus nagu leh allah u naxariisto innakana allah inooga daba naxariisto qof walba oo muraad leh muraadkiisa ilaahay gacanta midig ka siiyo wixii naga xanuunsanna caafimaad sariic allaha siiyo wasala allahu calaa sayidina maxamed bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda haboogaanina dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra